halkan maanta waxaanu idin haynaa waxa aad iyo aad ugu farxi doontaan waxaan leenahay dhammaantiinba sanad wanaagsan sanadka cusub allah inagu gaadhsiiyo kiisa kale bashbash iyo barwaaqo cali baan u jeesto waxaan calow maxaad haysaa maanta waay arrimo far badan baa haya marka si aan waqti uga faa'iidaysano waxaan ku dadaalnaa bal inaynu soo gaabino intii inoo geli karto meesha ay noo gasho qaar badan way ku qasli doonaan dadku way ka heli doonaan macluumaad baa isna ku jira waayahay بسم الله الرحمن الرحيم وحن كبر أبدنا أن سيد الله سعتانبا مقالة هرقيسة وكسر على لأن يردي أي لون كوريا وانقص تبي والله هايستا تبي كوريشة سمعت هاي تبي والله كحيرة نيو مرك تبي على مرك ما أسكر بالغورية أسكر تما كحيرة سبعة أسكر تبي مقص سيدته وأنا تصدقنا تبي تبيه أي لأن يردي كشرية مرك ما تدخل بكشرية مس تدقارة تارجت قريب لأن يردا تمها سيد الجوني ذا أشرته وحوي اللي بدر لنا أي أقوال هذا حيرته أي حيرته وانقص أن قاركود ملا والله يربحونه أفرق نوع أوريجينال واساس أيا مركا أسكرتو قار وحقيني بشوكي سليق بليس ده من اسمعناه وحوي مركا هو دقن حمي كيل دقن حمو لكن دقن حمو ذا أين يقدر يتمال منه على الحرية مركا وهو رئيسا حكومته جماعة إن بوليسكا إن أي ترى باهين دتك sidaa u xiirtay labada dhinac xiirtay ama fooda sidaa ka dhigay ama dhowr samaystay soo qabta askarta timo la soo qoro leeyahay timaha noocaas hal la qabto ma cadda horta ay meesha kuma cadda marka askaru saas uu ku jileeciyaayo isagoo hadduu doono hubsan ayuu maqas la geliyay qaarkoodna inta luqunti baaraan ay xoog ku jiidanayaan oo way xirayaanba marka waxa la soo deenayaa yarkiyo maqaskiida lagu ciyaaray timihiisi waa inuu ordo ra'iis la taga markaa markiiba oo ila timihiida isla sin ra'iis laashi shalay lacag fiican beheleen maanta ardaydii jaamacadda oo iyaguna de sidaa waa dhalinyaro saa u yar xiirta timaha ama u jirta ayaa jaamacaddii tegi waayay oo wixii raada askartii baa ku imanaysa meesha oo bal adigoo timahaaga la baxsan waaya iyada lafteedu waa walacas hay calow ma marka askartii ma shaqo kale waayeen oo qabtaan yaa dheerta maxay ka rabaan war bal horta waxaanu eegi doonaa askartu horta hay-adaha fulinta oo maxkamaddu ay ka mid tahay iyagu sharciga fuliyaan askartuna waa kuwa soo qabqabta qofka la tuhunsan yahay marka iyagu xaquguma leh inay fulintii iyo soo qabashada isku daraan askari maqas weyn sita ayaaba dembiya ayaaba khalad moogta marka inamadii hal soo qabto maxkamadda inta la keeno maxkamaddu ha ku cadayso waxay ku hayso okay midda labaad maadaama wixii aanu dembi ahayn oo qof timihiisii la baxay ama yareeyey uu yahay waxay u baahnaayn in waqti la siiyo la yidhaahdo bisha koowaad wixii ka dambeeya ninkaan soo diyaarin waa la qaban doonaa inamadii fursad lama siin gabdhihiina waa ku qoslayaan qoladii bidaarta lahaydna waa ku qoslaysaa war hala qabtay leeyahay oo qaar baa waxay tuunsan yihiin ururka bidaarleyda inay ka dambeeyaan hawsha moogta kowdhe marka horta arrinka meesha ku jira waxa weye inagoo sawiradii videoga meesha keeni doonaa oo qaarkood ayba ooyayaan wiilasha oo la garaaco xoogaa baa la jigujiyey horta qof dhallinyaro ah in la hanjibiyo waa aad bay u xun tahay dhallinyaronimadu waa wax macaan waxay leedahay firfircooni bay leedahay han bay leedahay himilay leedahay qofku markuu dhallinyaro yahay cunto yar buu cunaa wuu xarrago badan yahay si yaroo gooni u socdaa hawo kalu ku jiraa dhinaca kale marka laga eegana ninka xaragooda ee dhallinyarii ninka wax arbishow maaha isagaa mashquul isku ah timaha sidan ka dhig hebel hebel baa maaragtay ka dhigtay sidan u shanlee saliid hebel soo iibso ninkaas waa nin nabadeed marka ninkii saa isku biisi isku ah ninkii biisiga isku ah isku soo jeedisay waa dhallinyaradii baad kicinaysaa nimanka aan shallaysan ee had iyo jeer ordaya weeye nimanka wax arbushaa waxa dhacda hargeysa waxa jirta hadii habeenba la gaaro ciyaal fara badan oo mobilada dhaca oo shandadaha gabdhaha kala carara oo wax arbushaa dawladdu kuwaas ahayd inay askar u dirto ma ahayn kuwa timaha la bax beri dhexdaas oo lafteedu la baxay iyana sawirkeeda aan idin tusi doono show ma sigtaba ilaahay baan hargeysa maanta geli waayahay qurba joogtii ayaa iyaduna qaarkood ay guriyii ka soo bixi waayeen qaar badan baa saa u xiran okay
haddaba dowladdii mar haddii dadkii qaqabanaysay waxay ahayd in wasiirka hore ee haddii ilahay ku ri caafimaadka saleebaan xag la toosiye in isagana soo qabtaan saasuu xiraa isna waa dhinac xiran yahay waxay kaloo ahayd inay soo qabtaan xuseen aadan cigadeer ninka la dhaha afka fahayeenka madaxtooyada isna saasuu xirtaa waxaa kaloo iina jirta askarta waxaa qabanaysaa koofiyadda hadday iska qaadaan kuwo badanoo dhallinyaraa ayaa sidaa u jirta waxaa kaloo iyaguna jira golaha wasiirada cusub ee muuse bixi qaar baa iyana saa u jirta waa dhallinyara iyagu warde waxay saamaynaysaa haddii timihii la eego in badan bay samaysa faysal cali waraabe in lamid uba badbaadaysa ilaahay xiray iyo cabdiraxmaan ciro horta sawirada oo dhan yaasiin latiisa istaaftaada waa qolada ka dambaysay sawiradii oo aniguna kaygaan ku dhex daro ayaanu eegi doonaa iyo wiilasha oo la laynayo sanadkii hore tagay samsamaytimuhu dhabarkay maraayeen sanadkii hore tagay samsamaytimuhu dhabarkay maraayeen shaambota caybaan timihii ku maydho karoonbayga jeexme shaambota caybaan timihii ku maydho karoonbayga jeexme annaintaad dharagtibaad waan tegay ilaadee kaa yeeli maaye cadnayntaad dharagtibaad waan tegay ilaadee kaa yeeli maaye ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay bidaartaba tima looma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa timaa hadhaadhe inaku cimra qaataan haka baqin bidaartan kuwa timaa hadhaadhe inaku cimra qaataan haka baqin bidaartan kaagin ku jira taas horta waa taa dhinaca dadka u rogaya in muuse bixiyo dowladdiisu ay ka bilaabeen tima jaris iyo ciyaalka qabasho dhinacaana lama odhan karayo way hagaajiya isleeyihin marka hadda isma laha dadkiina xidxidho oo laayo oo arbushiga waa la gashay marka
بلورت اللح بلود يان الإيدين دولة لح بلوها للسوق لا السوق ولي دولة دنوا دولة قلقورة نساء وأنا استاك برن مركا ير استاكتو بينو أنا نوح لنا مقص كاسكرت على قدر مقص كاسكرت على قدر ما يورت عسكري مقص هذه كوفيدها اسك قاضي سيلف جزاس هلا يا قدر واي وأنا كنت دونا سي الله سعتان بام ماملك هو ذا السري أو تضرب إلى 20 سنة ضد الصومالي قعنتي دان كتشرين أيام مركلة قعنتها دولة فدرالك الصومالية لقوا سعودي واساس أن ودك كينيا أيها كويسي قعنت هي هو الصومالية waxa soo gala ilaa iyo 200 oo diyaaradood oo dhinaca dhaqaalana lacag fiican laga qaado waxa iyana khilaaf uu ka dhaxtaynaa Somaliland oo ku doodisay anaga xaq u leh intii geesteeda marta in hadii ay ku riyahay inaan maamulo hawadeeniba ayaa waxay noqotay dabeeto mid diyaaradaha caalamka oo dhan ayba ku dhex gabadaan oo qaar hawlo kale ay ku fashay ay maraan halowdana Kenya laga qabanaya marka waxay isla meeshan dawaaska fawda xira haruub aad dhaxgali kartaan aan markii hawsha la soo celiyay ayaa Somaliland waxay ku doodaysaa qaarkood oo ay leeyihiin waa been waxba looma dhiibin Soomaaliya لما بدي من بعد حكم الترند الله دور مثلا إلى هذا ولديهم ده مركو ورس أن وسيردي صامر الدولست هودا وكمل يه محمد حاشي ومركز دمانها وزير كم دحتويه ده أيا يسوقنا هذا كه روح أو شاقة إن وحقت كه يا هودا الصومالية أي تهاي سوماليلاند وحوك صارتي إن أنا الصومالية كوب شاه كعب أما كنترولين هودا يسوق أمريكا يدل الدنيا إن شعب كرير سوماليلاند جهوينك السياسات laga duwo ama la khaldo ayaa beena fara badan ay iska jireen marka Soomaaliya rumaysan anaga rumaysan ayaa lahayd horta Maxamed Xaashi oo arinta ka hadlay oo waxba kama soo naasada oo anaga hayna ayaanu daawan doonaa oo soo naagsan siraaca hawada ma hamid maanta bilaabmay waan saxaya haddii dadka qaar moodayay in khilaafkan hawada iyo Soomaali damaceedu inay hawada la wareegaan ay maanta bilaabantay ilaa 2011 May ayay bilaabeen inay la wareegaan marba waraaqay qorayeen ilaa Security Council-ka ilaa iyo qaramada midoobay ilaa akaad dagaal adag baa inta lagu dhaxsay riyadoodii iyo hamigoodii Somaliland mar walba dagaal cad bay ku jirtay meel adag bay taagneed way garabaysay bulshada qancinaysa beesha caalamka way guuleysay barkuma taal bay noqotay go'aankoodii ahaa lagu wareejo uu rumoobi waa taalamay dhiganayo waxa mar walba baajinayay oo dib u dhigayay oo gacanta qaramada midoobay ku hayay mowqifkiin inagu taagan dagaalku ma cusba hadalka ay go'aanka ay soo saareen ilaa 2 bilood muddo ka yar baa lagu wareejinayaa maamulka hawada waxaanu aragnaa riyo aan rumoobayn oo aanay xaqiijin karayn waxaan bulshada Soomaaliland u cadeynaya u ballan qaadayna xukuumadda ku niyad samaysiinayna inay mala awaal iyo riyo tahay arintaas waxaan u ballan qaadaynaa bulshada oo u cadeynayna inaan hawadooda laga maamuli doonin muqdisho wala xawla ya أن حقيقة نبتة هذا بحوي وأنا صح حقيقة إن دولة الفدرالية الصومالية قاعدة تلاقي صاري وياه أنت أيام معمول شيء أودي بتقولين كان أيكول هنا وحوي كواسي قرمد المذوبة كتسين قرمد المذوبة وحكم بهذا بحركة هو لو كلاقاته ضد ظن أن داوني فهم سنين ضل على عقون سنين وعقونسي لهين أما أدوية قرمد المذوبة عن كرسي كلها هو اللي مدي بكرات شرعي ما صارت وين يد السمالة أي واقعي هدي واحد بالله هلا بيني لبك هذا لا لبات لكم بشرته صارت وين الرميستو مركا قرمد المذوبة هو حسد الصومالي وضل لا اعترافين هي مركا وضل وجو أمين كريم هوديدي نمبر هذا إيري كورك الصومالي 252 سما إيري كورك كده وحق عندك كويسة دولة الصومالية مركزية 252 إيري كورك اللوجو ديبي أيام اللوجو ديبي كرين سوماليلاني بوتلاني تشبلاني ريبل بسوس يعرفنا لما ديبي كرو مركا الرمو وكلا مركا الصوماليلان لا أقون صدق
rool weyn bay ka ciyaar kartaa واساس wixii la soo inay waxa ay tiraahdo hawadeeda dhinaca anaga maamulan حق بولاده xaq ba u leedahay واساس هذا laakiin imika aqoonsigan aqoonsiga ka horeeya. ayaa ka horeeya واساس aye haddii imika aad doonaysid baakad sigaar inaad soo iibsatid ha gas stationka ma meesha wax ka iibsanaysaa ha markuu ku eego wuxuu ku leeyahay ha ID-gaa keen ha marka haddii ID-gaagu aad 18 ka yar tahay Ha. sigaar ba laga iibin maayo naga tag baa lagu leeyahay marka haddii Somaliland 18 ba ka yarta على وليغا ما لو جادي sigaar laga iibin maayo ما لو جدي anigu inkastoo aan sigaar ka cabin ha haddana marmar saaxiibadii aan wada socono Ha. oo yidhahdaan calow naga soo qabo ha gabadh baa laba jeer weydiisay laba gabdhood Ha. laba gas station ha ayay igu tiri ID-gaa keen كان ما تانكي بكتر may Hey. qoladii ila socotay baan yidhi waxaan ku kahale Hey. bal gabadhan dhegeysta ها ku celi waxaad tiri Hey. marka waxay tidhi ID-gaaga tis aye waxaan ku yidhi samaarti inaad nin yar ahay Nin yar ID-ga ahaa. soo saaray aad baa mahadsantahay. aad baa mahadsantahay aad baan ugu helay runtii way dhacdaa ilaa laba jeer bay soo martay Ah. n waayahay waxaan markaa eegi doonaa ha hal mar ha maxamed xaashi waynu daawanay soo ma والله ها waayahay bal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo Ha. oo diyaaradii u horreysay Ha. la hadlay ha inuu lacagtii ka qaada mooyaane Ha. horta wuu la hadlay Ha. bal aynu eegno داو شو وناكسن halow halow isagoo leh Nairobi, Mogadishu for radio check. How do you read me? 455. Loud and clear. Thank you very much. Thank you. وحاجه يابا hagidii Ha. halkaasay ka bilaabantay Aye. marka wax la gudboon waxa weeye soomaalida Ha. inta iyadu mashquul isku tahay Ha. ayaa dad kale oo cadow ka faa'iideysan ka faa'iideysanaya somaliland iyo intii la halmaasha Ha. ee la maxaa loo siiyey soomaaliya ha dee marka kenya haysan كان محو هدو maxaa ay lacagta daldalanaysay Ha. ay waxayna qaadanaysay arrintaas- At arrintaas least- arrin la yaab at leh. least kuwan soomaalida ah Ha. yaa qaataan dee Ha. wuxuu Ha. ha. La tagaan. Iyo wax laysu quuraa jirta Ha. Saas dee, ha. oo la yidhaahdo dad walaala baynu nahay Ha. walaalnimadeena Ninkaa shisheeye markuu Ha. haysta may hadalay. ha Ya. bal horta taana Oo saas. iyana in laga fikiro ayay u baahan tahay وان قلت hawadaasaynu ka bixi doonaa aye حاجه sidaan la socono gurigii general qaybdiid oo ah senator ka tirsan aqalka sare ayaa shalay la weeraray aye oo gurigii laysku dhex yaaciyey isagoo shaqo ku maqan oo ku yaalla magaalada muqdisho oo magaalada muqdisho aye marka waxba laguma dilin waxna lagama dhicin Ha. laakiin inta gurigii askartii lasoo dhaafay xoog Ha. ayaa la qasay guriga dhexdiisa aye dabeeto dad iyagu u haysta soomaalinimada ama qarannimada ha qabiil ha oo nin un ku mashquulsan nin reerkiina ah baa la yar galay Ha. ayaa markiiba booday oo dowladdu way caddaysatay inay maalinba nin u gasho waxba lama hubiyo soomaalidu Ha. marka ugu horreysa Ha. waa khalad Ha. in senator ha xasaanadiisa wata gurigiisa la galo ha nin waliba ogeyn khalad aye ninka la yidhaha qaybdiid ha senatarnimadiisa ayaa ku filan ha xaq dhowrkiisa ha iyo inaan loo geli karin gurigiisa si aan sharciga waafaqsanayn ha reerba ku raaci mayna dee Ha. waxaan ku raacaynaa qaydiid ahaan ha dawasa qarankeennu Ha. ma kuma khaldami karaan qof maaragtay saas oo kale Ha. ah laakiin khaladku xagu ka dhacay aye dowladda imaaraadka carabta Ha. ayaa wada qas ay doonayso soomaalida ha qabiilka jecel Ha. inay qabiil kaga faa'iidaysato tusto marka Ha. qaybdiid Ha. ayay u dirtay ha rag iyagu ay tababareen oo xoradooda militariga ay ka saareen Ha. oo dowladdii soomaaliya dareeskoodii gashanoo matalaya Ha. in iyagoon cid waxba yeelin ha idaacadaha laga maqlo sawirada laga daawado ninkii baa loo galay wala ciidan oo Soomaaliya markaa laga dhigayo dawladdiina u dirtay dowladdiina u dirtay haye waan gartay dowladdana waa hormoog ha waan gartay marka waxaa la doonayaa kuwa qabiilku dee u dhiigga ka galay Ha. inay in arrinta badboodaya dawladda ku kacaan Ha. dawladda laga horkeenaya laba arrimood buu inala gudboon waa saas qabiilka iyo nin jeclaysiga intaynu halkaa iska dhigno inaynu aragno cadowgeynu inuu yahay horta imaaraadka carabta wasaas haye ha nimankan inagu dhex jira ee dowladnimadeenna iyo senataradeenna doonaya iyo ummadeenna kale shacabka Ha. in ay qasaan Qasaan, ha. oo ay iskeen tusaan Ha. waa in horta dana calow taa waxaynu kaga hadlaynaa hay naga sii dhex gelina barnaamijka aanu kugu waraysan doonno ee gaarka ah barnaamijka gaarkaan ayaynu kaga hadli doonaa imaaraadka carabta imaaraadka carabta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka iyo soomaaliya dalalka carabta oo dhan Ha. bal saamaynta ay soomaalida ku hayaan barnaamijka idinku soo socda oo aan kan kaftan aad u ka ahay. xiiso badan ha marka dadka waxaan leenahay Ha. isdejiya ha hay Ha. qaybdiid ha wixiisa halkaasaa la soo dhigay waa iska caddahay badee wasaas qaybdiid waxa garab taagan soomaali oo dhan warinta reer aad isleedihiin qof reerkiisow idinku hadla ee qaybdiid markii gurigiisa la galay intii xildhibaan ay ku jirta ee la haybta ahayd qaybdiid ha waxaan aqaan may markii waa hadlayaan ma sugayaan wax Ha. waxa weeye qaybdiid waa agardara lagu wadaa reer baa lagu socdaa baa laleeyahay waayahay lama odhanayo waxan yaa horta nin halkan shaah ka qaadanaya Ha. oo ay isku reer u yihiin qaybdiid ayaa markaa tira asalaamu calaykum baa waxa dowladda wada qaska wada waxa doonaysa wareedhe qaybdiid soomaali oo dhan baa garab taagan ha khalad lagama geli karo Ha. iyo dembi
aan sharci waxaan sharciga loo soo maray sharciga haa ee cidda qaska wada Ha. aynu soo qabanno oo aynu hor keenno innagu haddaynu gacmaha is qabsanno cadowgeennu inaguma soo degdegi karo laakiin cadowgeenna iyo gacalkeenna aan kala baranno soomaaliya Absolutely. inagu widhan kara qabiil moogta saas wey taana way ka gudbi doonaa waa hagaag sidaan la socono Ha. cabdiraxmaan cabdishakuur Ha. iyo dowladda federaalka waa kuwii beryahan isku dheganaa Ha. doodii weli way socotaa Ha. tan qabiilka halkaa iga dhig haye laakiin laba nin Ha. oo cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka mid yahay Ha. iyo cumar cabdirashiid sharmaarke Ha. labaduba waxaynu halka ka caddaynaa u sheegnaa dadka aan fahamsanayn waxan Ha. labadan imika isku qabiil maaha soo Ha. maha ila soomaalida qabiil baa waale Waa saas. labadooda waxay u shaqaynayaan imaaraadka carabta labadoodaba labadoodaba waa dhibaato dowladda imaaraadkana waxay doonaysaa by any means biayi ariiqa Ha. inay burburiso Dowladda dowladan jirta. uu madaxda ka yahay Farmaajo. farmaajo ra-iisul wasaarena uu ka yahay khayr khayre waxay doonayaan oo iyaga ay ka dhaadhiciyeen waa sida iska dhaadhiciyeen Ha. in labadooda midna madaxweyne ay ku taageeraan Ha. midna prime minister prime minister Waa gashay. dooda u weyn Ha. waa sidaa 20 xildhibaan ayaa imika ku sugan oo xildhibaanadii baarlamaanka ka tirsan Ha. magaalada dubai ajaib cumar cabdirashiid baa hor fadhiya haye isaga shir gudoominaya isagaa shir gudoominaya waxaa ka mid a dadka meesha fadhiya shariif xasan shariif xasan cajaib okay maxay doonayaan dadkaasi Ha. waxay doonayaan Ha. in lacagtii la siiyo Ha. ay ku samayn lahaayeen mooshin Ha. ka soo horjeeda in la rido ay ku doonayaan dowladda federaalka federaalka waan gartay markaa soomaaliyey Ha. waxaad ku soo tacabteen ha duminteedu ha waa in dee miisaankeeda aad saartaan saas wey inaad dib dambe haddana wax u dhistaan waa saas waxay keenaysaa waqti iyo kalsooni darro kalsoon darro. waayahay Ha. labadan haddiiba aynu ka dhigano Ha. waa laba ninoo soomaaliyeed Ha. cumar cabdirashiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ha deesu haddana qolo kale berrito ha ma tegayaan qadaroo Ha. ma odhanayaan labadan aynu ridno waa saade oo qadar laba kale ay wadato Ha, waa saas. haddana inoo keeni may halaqmareen bay Ha. noqonaysaa marka cidda la burburinaya un Ha. ee carabi ku ciyaaraysa Soomaali. waa inagu un Ha. saas wey marka waa inaan ka hortagnaa Ha. wixii qarannimadeenna Ha. u xidhimaya ha wixii qarannimadeenna ka khaldanna Ha. waa inaan si wada jiro u wada saxno ha dastuurkeenna sixitaankeesu inagu inoo yaalla Ha. imaaraadkana uma yaallo qadarna uma yaallo Waa saas. marka carab ha yaanayn isticmaalin Hey. waxaan ku tusayaa Ha. cumar cabdirashiid waxaa hadlamaya cabdiraxmaan cabdishakuur Ha. wuxuu yidhi ha farmaajahan aad arkaysaan imika isu kale waalwaalaya ha garhka iyo gunduhu i qabtay Haye. markii doorashadii socotay Ha. oo wuxuu yidhi Ha. round two adigan soo galay roundkii labaade Ha. wareeggii labaade codadka aad haysatida faraha badan leh haddii aad igu shubtid madaxweynean noqon karaa dabeetana anaa farta ka saarayay arrintaa cabdiraxmaan Ha. been buu ka sheegay haye awrkiisu ku kacsanaya Waan gartay. round two ama wareegga labaad markuu soo wareegay Ha. laba codoo qulu laba cod buu watay muxuu siima marka waxba siin badan marka si aan u caddayno marka hore horta cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur oo leh ha madaxweynaha ay beriyey oo aan siiyey goortaan daawano jawaabsho wanaagsan waana la yaqaanaa doorashadan la qayb galnay maxamed cabdullaahi farmaajo ninka codkiisii weydiisto oo ahay secondkii roundkii markii la marayay weji labaad doorashada iga barya codka inaan siiyo bal aynu daawano jawaari oo baarlamaankii kaga hor raaqaya wareeggii labaad baa la marayaa cabdiraxmaan cabdishakuur laba cod buu wataa bal yanaan daawano natiijada wareegga koowaad waxay noqotay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame 2 cod waan gartay cajaib halkaasaa la isla maraya waa marag madoonto marag madoonta haye waayahay haye taasna waa taa waan gartay arrin ayaa jirta kaftanka siyaasadda aynu ka hadalay aad uga hadalay oo ahayd gabadh lagu kufsaday ha magaalada boosaaso dabeetana ninkii kufsanayay uu xabad ku dhuftay oo ilmo galeenka ha uu kaga dhuftay ha gabadha caafimaadkeedu ha halis ba ahayd gabadh reer saboola ka dhalatay ba ahayd waa saas ninkii wuu cararay kismaayu tegey ha jubbaland baa soo qabatay Ha. puntland bay u dhiibtay waa saase puntland ha horena u sheegnay waaniga idhi Ha. ninkii ma south africa u direen mise baadiyahay u direen Markaasay mise noogu jeel- dambeysay. mise jeel waxa la xukumana ma aragno Eeg, markii diyaaradda laga saaray kismaayo ayaa nagu dambeysay marka ninkii ma caddayn karayno meel alle meel ku sugan yahay in guriga madaxtooyada qol laga siiyey haye oo la yidhi nin libaaxa baa tahay haye iyo in ninkii god lagu riday godna laguma ridi karo oo dee maxkamadba lama soo taagin waa saas hor lama soo taagnaa gabadha aabaheedna Ha. lalama xaalinba Haye. waa la ignoor geeyey haye arrintaa kaftanka siyaasaddu aad bay uga dhidhiyeen dhowr jeer baynu ka hadalnay Ha. dabeetana waxaa u kacay Ha. ilan soomaali waa mide ha taabit waa inanka duqa magaalada Duqa muqdisho magaalada Muqdisho. ninkaasi
maanta halka waxaan uga soo jeedinayaa ammaan iyo hambalyo gabadhiiba u gurmaday waa nin dhalinyaro oo dadaalaya reer waa naga nidhi inaga waxba inagama gelin barnaamij kaftarka saad haddaan nahay reerba uma joojino ninka waxqabadkiisa ninkaasi waa nin yididiilo badan oo wixii doonaya ha xanibaan wax badan doonaya inuu qabto waa nin hadhiya habeen soo taagan markaynu meelaha ka daawano gabadhiibu u kacay turkiga ayuu geeyey maasha allah xisaabtan dee dowladda federaalka ayaa qabta laakiin dee ninka waxaan keenay baa ammaanteeda iskale marka dadaalka isaga iskale gabadhii ayaa markii ugu horreysay yididiiladii caafimaad ay usoo noqotay markaasiis aragtay inay ka dhalatay soomaali ee aanay ka dhalan reer ee aanay ka dhalan meel la aamusin karayo oo codkeeda aanay kor qaadi karayo gabadhii shalay baa lagu sameeyey qalliinkii u horreeyey waxaan u rajaynayaa iyadana caafimaad in ilaahay siiyo taabidna waxaan leenahay jazaaka allah khayr weliba gabadha intaa kaga hadhine daba soco oo ilaa amba bixinteeda wayna la socotaa gabadhii oo horta hadlaysa intii aan la qalin ka hor ayaan in yar idinka tusay alxamdulilah waxaan kuma aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa xaggaana aad iyo aad baa layga soo markaan soo tegayey laysoo ambabixiyey gudoomiyaha iyo maamulka gobolka istanbul aad iyo aad baa laygu soo dhaweeyey dhalinyaro odayaal wax walba aad bay igu soo dhaweeyey aad iyo aad baan ugu mahad celinaya haye kawar qabow markaa soo gashay magaalada qabow ma aragtay qabow saayida waa arkay haye maxaad dareentay kuleelka waa kasoo tagtay kuleelka waa kasoo tegay markaa diyaaradda markaa saab degtay baa arkayba daaqadeeda wada baraf waa garanaysa maasha allah suma ilaahay caafimaad buu rajay gabadha kadib mid kale ayaa gaarkacay lagu kufsaday waxay ka soo jeedaa beelaha gabooyaha la yidhahdo cid u hadashay iyo cid u duuday iyana way lacdo sanadkii aynu soo dhaafnay markii aan tiriyey sanadkan imika dhammaanaya 2017ka waxay marayeen 72 inta la kusaday waa lambar badan wey 72ka cid loo soo qabtay 4-5 kama badna inaa lilah ma jirto qaarkood 20 qof 20 nin ayaa fuulay qaarkood waxaa da-dooda ahayd 6 jir waa dee waxa weeyaan waa diskas wax maarata raggii soomaaliyeed ayaa eedda ay dusha ka fuulaysaa maamulada ayay dusha ka fuulaysaa waxa wanaagsan horta kufsashadan in laga dhigo dembi ciqaabtiisa la wada ogyahay ilaa haddaanu maamulada soomaalida ilaa dowladda soomaaliya kama maqal heerka ciqaabta ee qofka ninka gabadh kufsada culammada kama maqal iyagoo kufsashada ayaa ka hadlaya arrimo kale ayay ku mashquuleen marka arrinta waa sida ninkan timaha ku mashquuloo kale ya meel baa lagu mashquulay nin walba meel lagu mashquulsan yahay arrintaana intaasna kala gudbi doonaa waayahay xuutiyiinta iyo somaliland ayaan eegi doonaa calow waa qoladii ka dagaalamaysa yemen qoladii yemen ka dagaalamaysa waan gartay waliba beri baan ugu tagay oo beriga iska niman masaakiin ahaa ya meel sacda la yidhahdo qoryaha waa la wada sitay laakiin kuwanaa beri meel qaban doonaan ismahan almuhim nimankaas waxay gantaala la dhaceen ilaa riyaad ilaa sacuudi arabiya ilaa jidda gaadhaya gantaalahooda gantaalahaas waxaa la yidhahdaa waddanka iiraan ayay ka yimaadeen waa gantaalo ridada dheer meelo badan gaadha oo disaster burbur sameeya maalin dhowta waxay soo duubeen cajalad ay somaliland kula hadlayaan oo ay leeyihiin haddii aad siisaan imaaraadka iyo xulufada saldhig military waxba idinka hakran mayno gantaalka u horeysa waxaanu qabadsiinaynaa berbera iyo hargeysa intaan imika aan idhi iyagoo af carabi ku leh horta aan idintus daawasho wanaagsan أرض الصومال نحن على علم بتحركات الإمارات في أرض الصومال التي تريد من ميناء بربرة من أجل إقامة قاعدة عسكرية تريد من خلال استخدامها في ضرب أراضي اليمن فتعلم شعب وحكومة أرض الصومال أن هذا الحرب ليست حربكم وأنتم أخواننا وعرضكم من عرضنا فلا تسمحوا لهم بأن يزرعونا واحدا على
وهنجباتني hanjabaad carabi واي hanjabaadda sala soo qaato dadkii reer Soomaaliland Ha. qaarna waxay leeyihiin waa iska ruwaad been Ha. qaarna waxay leeyihiin Ha. war malaha dawladda federaalka ayaa afcarabi nagula hadashay. ayaa afcarabi nagula hadashay laakiin arrintu sama arrintu arrinta xuutiyiintu horta niman kaftama maaha waan gartay waayo markay dagaal galeen iyana burbur baa ku dhacay wadankii Yemen uu burburay weli diyaaradihii Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa garaacaya halyeeyadoodii waxa la ay diyaarado caruurtoodu waxa la ay diyaarado cala xun bay qabaan marka Imaaraat iyo Sacuudi Arabiya ma maqli karaan hal dhig bay ka maqlaan waayahay waxaan anu aaminsanahay calaha arrinka ay ka dhawaajiyeen inuu xaqiiq dhabka yahay rumbuka laakiin gantaalka iminka ma soo ridayaan ومالك هشيس ودعو ومالنت هشيسك ودعو حقيقسدان ان ديارد سعوديga iyo imaaraadku ay leeyihiin ay berber ka soo duushaba iyo ku duush berber iyo eeriyadana waxba isma jiraan tanaba u raqiisan marka dheeli ba kaga dhigeen sida roobka ilaahu naga badbaad halka waxa ka soo socota ilaahay naguma keenee waxba la sii saadaa anigu ma leeyahay ku soo ridee waxa weeye ilaahay kuma keeno dadka laakiin Soomaaliland ma aha arrin ay inay dheersato ma aha ciyaal loo jiriinta meel soo istaagay iska hadlaya ma marka waxa idin la hadlayaa waa nimanka ay xulufadu caalweeyay ay qaban laayeen arrinkaasi Muuse Biixi uu ka tashaday oo uu hakiyay arrinkii ku saabsanaa saldhigga military ee laga sameeyay magaalada Berbera kadib markuu maqlay warningka iyo arrimo kale oo qabiyo ah waayo dawladihii Imaaraadku weli kama muuqato inay si dhaba ay heshiiska ay diyaar u yihiin taas waa garan xuutiyiinta marka saa yiraahdeen ayaan eegi doonaa bal Soomaaliland iyana waxay ka aaminsan yihiin aan dhageysano soo wanaagsan imika idinka la idinka caawinayo oo dawlado waaweyn oo Iran iyo nimanka la yiraahdo Xasan Nasrullah oo haysto aydan caawinayeen dibadda idinka riixayaan marka daariyar hoosteed baa ka soo hadasheen afkana waa xidhateen marka waxaan idin sheegaynaa in jamhuuriyaddan iska barakeysan tahay samadana laga ilaashado ilaahay ilaashado kruuska akhridaysaana aan waxba ka qaadayn xajaayib yahay rees male intaasna ku gudbi doonaa xuutiyiinta okay shiishada oo farab aan ku haysa ummadda Soomaaliyeed shiishada baashan la cabo qaarna badeecad bay dadku yaqaan ayaa Kenya laga mamnuucay fiicana haye waa xarig ninka lagu qabto shiishada shiishada waxa lagu eedeeyay in dhalinyaradii ay shaqo tagi waayeen iskuuladii tagi waayeen oo ay ku habsaameen saacado fara badan in ay ku lumiyaan haweenka ayaa iyaguna aad ugu soo qulqulaya meelaha shiishada lagu cabo magaalada aan joogno oo kale noordkeeda carabtu waxay ku leeyihiin meelo lagu cabo lacag qaali ah oo waliba hadii laba qof aad soo socotaan markaad galeysaan hal xabad la idinka imaay laba dhalo oo inaad iibsataan xabadina wada cabtaan lama xabad ina wada cabtaan amar waa mamnuuc lacag kasbanayaan Kenya waxay leeyihiin cudurrada faafa ayaa ay shiishadu ay faafinaysaa bahal la suuda dhiibayo oo dad fara badan oo dadkuna cudurkay qabaan aanay garanayn cidda warqad dhakhtar sidato oo insan caafimaad qabo cabiya waa taasna ma jirto leesma weydiinayo dadka qaar oo si khaldan u isticmaalayo iyaguna si khaldan xashiishad baa qaarkood ku daraa arrimahaas oo dhan ayaa socda haye waxaa laga mamnuucay ugu yaraantii 3 waddan oo bariga Afrika Ethiopia kamida Kenya kamida waxa kamida wadanka la yiraahdo Rwanda waxa kamida Tanzania intaas waa shiishad waa laga mamnuucay lagu macbi karo waaya qodob xigay tagay calow ana wax malaya cid shiishad imka doonaysa Dubai inay iska tagaan waxa jira iyaguna madaxweynaha maamulada gobolada Soomaaliya qaar kamida ay aad u caba shiishada kuwa shiishada caba waxaad goonaysa Dubai kama dhamaadaan walka saddeey wala kaasay marka intuu mid walba laba dhalo oo shiishada soo cab ayuu wuxuu ku leeyahay heshiis baan soo galay amiirka ayaa heshiis soo galay oo ganacsigan ka soo hadlay ya waa nin meel iska barbardhahay ya marka iyana sawiradeedii waa taa idin muuqata oo arrin wanaagsan oo aan leenahay iyana soo dhaweynayna aynu shiishada intaa kaga baxno waxaan eegi doonaa rag badan oo siyaasiyiinta
soomaalida ku jira oo mardii sanadka dhammaaday bal inta sanadkani ka dhammaaday ee baasha ku saaqiday ayaynu yar magacaabi doonaa haye 2017 ha haye waxaan ku bilaabi doonaa professor cali khaliif galay oo ka mid ah ragga haye siyaasadda ku saaqiday waan gartay oo de cidla iska fadhiistay guusha ka keenay madaxweynihii khaatumo ayuu ahaa muddo 3 sannadood ayuu duurka ku jiray haye oo halkan looga dirayay kiniinkii kanaacada ila meeshu waa hawd aad gelaysaa moogta oo u samray oo caano geel cabayey oo marba borderka Ethiopia marka laga ciidamo soo socda ayuu xagga kale u talaabayay aakhirkii shandadii buu ku soo qaaday documentskii khaatumo inay nabadooda galaan Soomaaliland dabeeto shandadii intaan caynaba la soo gaarin ayay ka luntay macallin wixii oo dhan dabeeto warqad isagu ka hadlaysa warqad isaga uu ka hadlaysa ayuu jeeb ku sitay tuumbu Sinaayo la soo baxay Sinaayo ku dhiciyay waa sax ilaa imku waa keligii tiisi wooday baashan shandadii dhamayna caynaba xaggeeda shay ay ka dhacday dhibaatadii ugu horeysay halkaas ka bilaabantay hadduu wuxuu ku xayiran yahay cali hargeysa heshiiskii uu Sinaayo la galay Sinaayona dhoof iska degta muuse biixi baa meeshii yimid oo aan hawshan ba dheg u dhigayn dhega hadal baa jiray oo Salmaan Gaal baa hadda ka hor yiri heshiis muu ahayn wixii khaatimo ay wada galeen iyo Somaliland waxay ahaydun isafgarad waan gartay wala safgaranay labada madaxweyne ayuun baa isafgaradkaas ka dhaxay dibata cali ayaa iminka nervous noqday islaantii saantaba reer hargeysaba wuxuu leeyahay eedo hadda reer hargeysatiin arintii khaatimada waa la fulinayaa xaafadiina ka soo laaday hadda ciidamo wadiinba islaantii u baale eedo ma muuse xira xiriir war muuse han bada mid ya waxaan cali halkaas ka go'ay kaga dhigtay professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa isna sidoo isu maldakhinayay oo laha waxa noqonaya wasiirka arrimaha dibadda ama Somaliland oo bardhow inta buu qaato wuxuu ku leeyahay 6 arrimood oo aan ku bartay muuse oo wada wanaaga cid u gali karta ma jirto boormuti 6 qodob ee muuse biixi aan idin akhriyo kitaabkii qadaafi oo kale ay bilaal asaan lati soo kitaabkiisa ay balaams sibaloyi balba xaqu aagay وحق آجي على خليف ده غير كيسة والله صير وحرحي وإذا على كشيء شري كان يصير غير كيسة كل يوم بهذا شري هجان كوجاي هجان كوجاي ده ترى نافسكي ما قرتي عين بوحي نوق هذا حس نصاصعت هي يا سنة كعصبة سنة ولا بهذية موح بدلي نمعن لا بوس كيسي نمعن لا سلم إيري لو كيل إيري ده وتيل إيري أحمد ما يمك بدل مكان لكن حكونا سين هاستي السنة أيو نقول له قينية ويودوا على بالهاستي السنة كنت هنصار شو نكسب والهيسياي سند ولي بهوديو أو إيو ديباتيو وحو هدي مليحي الهيسياي سند ولي بهوديو أو إيو ديباتيو وحو هدي مليحي والله هلايو هدو لغو حسوسا والله هلايو هدو لغو حسوسا كي لو هجاجي لقولو عويني كي لو هجاجي لقولو عويني كي لو هجاجي لقولو عويني لقولو عويني iyo hagaage noqolo haweenye kilo hagaage noqolo haweenye بروفيسور وعجيب عودكيسيو يا سندك waa halkiisa aad ka staabay sanadkan waa waayo xidigiina showgiisa laga soo qayb galo ama waxaan leenahay abwaarintu heeso badan ha u sameeyaan boroofesorka ya mawcud macaan
kuwa qaraamida jecel inta badan alaabta kabankaas kuwan geeska lama qaataan qaraamida waxaan eegaynaa waxaa kaloo ka mid a kuwa fashilmay iyaguna cumar cabdirashiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur labadan maxay labada kaga duwan yihiin kuwan waa dambiilayaal labadani waa labadii badda iibsaday waa dambiilayaal labadani waa labada iska dhaadhiciyey in iminka Soomaaliya ka noqon karaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare labadani carabta ka dambayso waxay kuwa kale kaga duwan yihiin ee wax bartay iyagoo reerun ku daba gabanayaan marka sida loo eegaba reerun bilay hayay soo yaaca tolay labadan ba tolla ayaba sii dhaaf dembiga ay ummadda Soomaaliyeed ka galayaan uma muuqato dembigii hore ay ummadda Soomaaliyeed ka galeen uma muuqato marka reerkuna labadaa nin reeruhu waa inay iska qabtaan iyaga oo idhaan wareer axmed sheegna waxa Soomaaliyeed idinku aragtay ayaad qabtaan raal naga haado waxaan goli doonaa bal sanadkan dad aynu bilada siin doono okay dadka aynu biladaha siinayno ayaa waxaa ka mid ah iyo barnaamijyada Soomaalida ay daawadaan barnaamijkii ugu qiimo badnaa ee feedback markaan eegnay survey qaadnay kii uu fiicnaan u eegi doonaa waayahay ninkii ugu guulaysnaa ee ugu madaxweyne jeclaa ayaynu eegi doonaa nacaminta nacamlayn nabawande inta dhaaftay nacamlayn ayaa marka aabo iyo maraysaa marka haye ya aabasiyaad kastuu noqonaya oo dhulka isla dhacayo oo aad argagaxaysa sida New York ma si kale loo galo aabasiyaad andax gal Allah yarxmay isaga yaa waxa number 1 xagaas mala Abdalla Gaawa waa Abdalla ninka siiriga darajada soo ku ninka sadde waxa soo dhintay waladan yareeyay nool baa u darmay wixii hore bix agaasimaha waaxda heesaha iyo fanka madaxtooyada Puntland inka agaasimaha ka heesaha waxa uu qoraa Cabdirashiid baa la yiraahdaa number 1 ninkii toddobaad wax ka soo carray soo dhigay iminka Abdullah maxaa gaas ayaa wuxuu tagay gaalkacayo duurka ayuu intuu kasii hortagay isagu ayuu duur taagan yahay oo baabuurta oo de waa taqaana baabuurta madaxdiisa sida ordaan intuu is hor dhigay ayuu sidaa leeyahay sidii trafficii oo baabuurta soo mashiri karaan baabuurtana ninka meesha taagan weli may garanbadee waxba wax ta ku dhufan karaan ninka wata brownku halis buu ku jiraa ninkaas wuxuu naftiisa u huray oo naftiisa u dilay Cabduul Daraadi wara waxa jacayl la yaqaan haye jacaylkeena ka weyn waxa soo dhan dilkani waxanba jacaylkeena ka weyn wasuusay haye dibata Cabduul oo gaari saxad ku jira ayaa halka ka garanaya loo nin meel baa taagan war ka daay Cabdirashiid dilina dilina baabuurta ayar sadam waxaaday amar madaxweyne kuma iman amar madaxtooyo kuma iman laguma sii ogeyn ciidan ma wato oo ciidan meesha taag checkpoint baa la moodi karaa waxa la moodi karaa cid in loo soo dhigay shirqool madaxweyne halistii ugu dareed ayuu galay qoladii diyaaradaha xagayso kale horta iyadoo sawira ayaan ku tusi doonaa idin tusi doonaa dabeetana video hadda ka hor isagoo oo madaxweyne xasan sheekh la taagan yahay ayuu badhamadii ka go'ay oo dhan madaxweynaha ay u xirxirayaan iyadoo kamaradiina hayso markaasuu madaxweynuhu yaabaya ninka soo galay calooshiisa haye waraade ninka loo saxmaa Cabdalla Gaawa madaxweynaha kama dhaafi jirin siiriyan buu garaaci jiray ninka inaan siiri u diro ayaa la qaato markuu Cabdulla hadlayo did uu yiraahdo bas daawasho wanaagsan wasiirkii ugu oohinta badnaa marka kaa waxaan siinay Soomaa goolada number 1 ninkii ugu nacamlaysaa maamulada Soomaalida oo waxaan isagana shahaado siinayna Adani oo halkan aynu meel joogi jiray isna waxa weeyaan wasiirkii ugu oohinta badnaa oo shaqada ay ka dhamaatay inta kale uu fiicay markuu siinay magaciisa maray ayaan buu oranayaa waxa weeye wadooyinkan la dhisay wadooyinkii ka horeeyay wali uu fiicay moogtay hadda madaxweyne أحمد محمد سيدايو بورنيا ونك قرآن بأخذ وأن القرآن خريو دي حسوستي إلهي يا أحمد محمد مركو حسوستي أيوه هو كل فنيا أيوه هو كل فنيا شاي بس أنا أينو من قبل شاي
يا وانقرت ياسين هلكا نكان وين أرجع سما وياه أنت أركن 2017 نيكي وقص بدنا سي ياسين بس نسقع dadweynaha siiyeenaga ma waxaan oo badaway waxaan oo dadweynaha ayaa bixiyay waan gartay shahaada suqaatay yaasiin shahaada suqaatay waqti waan gartay barnaamijkii ugu fiicnaa waxa la yiraahdaa hadii lagu sheegana waa la sheelaa hadii lagu sheelana waa la sheegaa laakiin feedback fara badan ayaynu helay barnaamijkii ugu fiicnaa oo la daawado oo la soo hor fadhiisto ama la sugo ama la yiraahdo maxaa ku dhacay kii maanta ma naaragay oo Soomaalidu ugu daawashada badan leh oo barnaamijka kaftanka siyaasadda ma sha Allah ay makaan ku dhex jiro Soomaaliya wana isku sacabinaa Mareykanku ninka hadlaya midna arag isoo hadlaya oo waxa weeyaan waxaan sameyn doonaa waxaan sameeyay arrinka caynkaas oo aan dartiin u sameeyay saga isku bilaabo wasaad وعادي وايد وحن قلنا دلال بين قلنا خرج بين قلنا انرجي بين قلنا وقت بين قلنا ما انت دحنت سو دحتي waxna ما لبن شال برامج وحنا قبقدي قبو دراد marka intaas waxaan u sameeynaa umada Soomaaliyeed in ay ka dhigtaan barnaamij waayahay dhinaca fankan eegna sanadka 2017 ninkii ugu codka fiicnaa baa dadka maqli jiray haddaynu nahay ninka ugu codka fiican Soomaalidu soo dilaysa waxay ugu tageen oo kala baxaysa ma eegin bay cadaalad ma xaga waan u goonaynaa ninkii ugu codka xumaa sanadka marka ka sheegayna dadku nin walba wala loo dambaya waqtigaad baa Yaasiin moodi doona laakiin Yaasiin ma waxaan xasuustaa marka laga hadlayo ninkii ugu codka xumaa in saaxiibkayo aan mar voice of America wada shaqeyn jiray oo Cabdisaan Sulul oran jiray ayaan bruusin jiray marka labadii dhiskina way isku dhawaayeen anoo forruux qoraya ayuu siiro hoose u heesaa marka saan salaam marka hore tolo ambulance baa marka saan mar labaad ka danaysaa tolo ma ooyay hormada qof baa ooyay markaan eego Cabdisaan Sulul heesi baa kama laakiin tan maqnaa maalin baad haysteen nabadii macalo sama marka isaga la siitay xaga waxa dhacday Cabdisaan Sulul bikhba Cabdisaan Sulul markaan dhageystay ninkan oo la yiraahdo mursal faladegan iyo xawala analysis diyan khaldan raalaga oo bilsam jooga ayaan saaxiibka Cabdisaan waa bikh horta bal isna codkiisa mar kale aan ku soo celiyo war waxaan qaadanaa heesti ka جعل بطان قانون تاسك هذا كا جعل وكا كا جعل وكا جعل جاركا جعل جهيسن جعل جوبدر جعل جلستي جعل جدالي جعل جيروجو كع جعل وكع كع جعل وكع بس عادي بقى يا جو warna adaga ninkaas waa ninka waaye madaxweynaha waa kii ugu codka xumaa kaas ugu codka xumaa sanad madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaan siiyay madaxweynihii ugu aamuska badnaa ninkaas intii uu joogay 7 sano cid macay Puntland area la kama soo bixin Muqdisho kama soo bixin Jubbaland ma oran hebel ma oran aamusnaan ku dhamaystay qolo oo isu haystay يا ولو يسوى هاي كل شيء شخصية أنا من أدب بدن أو أخلاق بدن والله وهلا يصير أيام أركي وياه بوتلان تانتين هالقصة مصمم القدرة مسمحين لنا ورينا موسى دورة اللح بلودنا مو قاعدين ولي حكم شيء كرعه أد بنروح إن اللح بلود كسي هور هذلو لكن هل أرين أيام بان ملاها موسى أورنا ومدحينه وجو حاجة كل بشرة وجونا يسمع وحرف ذي حرفضة حرفضة كل بشرة ما أورك حرفض والقى بستارة حرفضة دورشة أو بستارة شيخ وجهه أنا ما أورك ومغيه أنا ما أورك
muuse uu ku shubtana ma odhan karo kuma shubana ma odhan karo laakiin xarfad baa jirta markii laga dhigay gudoomiyaha xisbiga kulmiyana xarfad baa jirta marka madaxweynaha ugu xarfada badan ayuu siinay hadday doorasho timaado waxaan tegaynaa puntland madaxweyne ugu dhoofka badnaa bayladadii cabdiweli maxamed algaas haddaad diyaaradda fushid baylad ku xornaya cabdiweli haye hi cabdiweli how you doing today waa uu garanaya cabdiweli markuu diyaaradda qaar raaco wuxuu odhanayaa co-pilotkii pilotkii ninkii la shaqaynayay mee maanta ma arag markaasaa le 3 days waa xanuunsanaa wuu garanaya dee ila shalna wuu fuushanaa baasha ya ninka ugu dhoofka badan ayaan siina xaaf madaxweynaha galmudug soo maha ninka ugu qaylaada badan leh جو على مرايا حالد مع جبنه إلى جبنه ما شاء الله شغل سوا وطا شغل سوا ولا صح ورقيده وأنا كفت بدن ويقعنا ضد كسر الواقع الخارج وحريف عليه سجن ورخ جد بينا نقول نك هيرشبل وعسبيه وين يرد الناس فرايم مدحوني هو مسكين سنة فرماج يا سكين يا هذا تسحته حسية مديرو ويليرو مع عمد اللي يسوي ريم الموت إذا ترى مركو هذا الكبلابة يا مدحينو عين بوحو كبلابة يا تقول سومالي هنورات سومالي هاي سرح ما كصدقك غيرون يا هنا غير وين كنت بدون أحمد مذوبي ومدحين هذا قال لا يا باسبور وستبع مرلو فيه بدي نلبو مرلو فيه كلهم صعود لو نيكي واحد كوخيرن دياردي لعيبته uu bixinaya baasaboorna kula xun buu sitaaya meeshana waxay tahay meel waalan hadda ka dhoftid ba loo weydaa kismaayo hadba ninkii soo galan bayadu leedahay madaxweyne marka wuxuu isleeyahay kursiga ka dhaaqay waa sax ya waa sax daaradu fadhiya ninkaas marka madaxweynaha ugu dhoofka yarne way waxa soo haray Sharif Xasan maxaa siin lahayd حاجة منافقة مين؟ مسك ماسة كروشن واي ورتوا مدحونا قوله حاجة منافقة كل جود ما بقول هذا ومدحونا هدي أنا في الصومال وخادم بقى سو نقرأ سمحوا كذا عاو سو أفكم بايجا أيوك هذا مركا وحو كده يا الصومالي إن قوميت كلا كل حنا قوميت كلا كل حنا أساس مركا أفكم بايجا أيوك حوك صاري كان كلام انت يرى لو بيعبو ويقانا لكن هذا ترى الشرف ضد بان دين دحين يا adiga ninkan dood caynkaas wuxuu leeyahay dood ma yaba maswa af maxaatin warmay waa keen caadiga ah niyo ka kaftan kuma ku yaraqaanaay markii dood noqoto ka kalaan ku fiicnaa wasaas ya musumaasi waxa iska meesheeday waa madaxweynaha quradan afkiiba ku hadlin wasaas ya inta waxaan ku dhaafanaa madaxweynayaasha ayaan ku dhaafsan waan gartay dadka ugu shaqada yar leh in magacyadooda xitaa la aqoon haddana jawooyin waaweyn ku magacaaban dhammaantood waa madaxweyne ku-xigeenada kuwa weeraa waa Seeliciyow waa ina cami haddii ilaahay ku ri miyaa taqaanaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug lama garmayso miyaa taqaanaa madaxweyne ku-xigeenka ama hirshabelle lama garmayso miyaa taqaanaa madaxweynaha jubba war magacyadooda xitaa lama yaqaan meel cilla iska fadhiya shaqa ma qabtaa madaxweyne ku-xigeenka وهاجا وحنا سوقنا هاتنا جبجبدي برنامج كنا وحنا كسوق جبجبينا أرين ضدك الصومالي تفنتي دبي أنتي الضمير يدين بعد إيمان كود مارتي وشقينا يوم أي أد جوهري بعدين أرين كسوحوي ضفر بدن والهوين بوبدين سو استاج السوشيال ميديا لايف كا تبعتنا وحي اللي جح شون شري دم سو سوداية يعني قف أفكيسة هدو يصير هذا حضر إذا كم حكمته oo ilaahay hilmaamo oo diintiisii uu ilaabo wasaasi oo shakhsiyadiisii ilaabo oo da'diisii ilaabo oo aakhiradiisii ilaabo cidma xukumi karto wasiida unde wasiida ha faraaka ha oo dijibi ayaa socotay haye dumar fara badan si gaar ah ayaa soo fadhiisanay social media wax laga yaqiiqsoodo oo aanu qof weyn dhageysan karayn ayaa xitaa ilmihii lagu sideynaya haye dhawahoodii live marka live waxa weeye telefoonada aynu sidano smartphoneska ayaynu ka gelina ciyaalka xitaa sita marka ilmihii shanjirka ayaa ku jira oo haddii ay ku ran yahay dhegeysanaya wasaase oo wixii maqlaya markaa dhiirigelin ayay noqonaysaa anuu sometimes waxaan ba israahdaa eg
qofka aakhiradiisina uma wanaagsan wixii diinteenu ay tiri astura ayaa public la soo dhigaya dhaqan xumana dee carruurtiyooda horseedaysa ayaad horseedaysa waxa kale oo dhibka weyn ay tahay oo qofka ka sii waalacas kuwa daawanaya way waa dhiirigelin kuwa soo ururaya qofkii soo urura dhegeysta sheergareey soo bata kuwan soo badanaya ayaa wareerka dhigay marka not only fun maaha laakiin aakhiradaadii ayaad madax ayaad u gelaysaa adigoo soo bareeray moogta marka abwaan ayaa hees ka soo sameeyey heestii ayaa kaftanka siyaasadda soo gaadhay inagu qofna ma odhanayno hebel iyo hebla iyo hebel laakiin guud ahaan baynu ka hadalnay in waxaa laga waantoobo oo waxaa jira barnaamijyo qofka uu ku bedelan karaya waxaa ka mid u faa'iideyn karaya kufsigaa ka mid a inuu ka waaniyo waxaa ka mid a haddii ku reeyahay wanaagga guurka uu leeyahay haybadda uu leeyahay qoys burburka waxa wanaagsan ka hadal waxaasoo dhan ayaa aad u qurux badan laakiin waxaad iska noqoto uun dee dadkii bal inay qostaan la gal marka heesta waxaa sameeyey sheer maxamuud waxaa ku qaadi doona inaan la yidhaahdo caydaruus haley soo bata iyo soo urura ayaa markaa heestan ay ka hadlaysaa بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وناكسن دمان باقيارتنا داوانيساي كسو دوادا مركلة إيو برامج كيني كفتك سياسة سياسة وحادا على بحالكن كداوتان تضوات كيبا هالمر ساعدهانا وكلا برامج كاسي وحا اسكسو دبريده نوصو هبايا هالكن نينوغسو تشيديا و علي عبد حرسي على حرارة وحا نوصو صار برامج كاسي وياسين دعالي halkan maanta waxaanu idin haynaa wax aad iyo aad ugu farxi doontaan waxaan leenahay dhammaantiinba sanad wanaagsan sanadka cusub allah inagu gaadhsiiyo kiisa kale bashbashii barwaaqo cali baan u jeesto waxaan calow maxaad haysaa maanta waaye arrimo far badan baa hayaa marka si aan waqti uga faa'iidaysano waxaan ku dadaalnaa bal inaynu soo gaabino intii inoo geli karto meesha ay noo gasho qaar badan way ku qasli doonaan dadku way ka heli doonaan macluumaad baa isna ku jira waayahay بسم الله الرحمن الرحيم وحنا كبر بدنا ان سيدا الله سعتانبا مغالada hargeysa waxa ka socda dhalinyaradii ayaa loo dhukuraya tiiba lagu haystaa dhukurashada samagrata tiiba laga xiraya niyo marka tiiba marka maaskar baa la qoraya askarta ma ka xireysaba askartii baa maqasay sidata waan intus doona dabeetana timihii ayaa dhalinyarada ka jaraya marka ma dadka oo dhan ka jaraya mise dad gaar ah target gareey dhalinyarada timaha sida goonida u jarta waxa weeye labada dhinac ayaa koolada xirta ayay xirtaan waan gartay qaarkood malaha wala yar bixino afrooga noocan oo jirta ayaa marka askartu qaar waxay geenayaan bashookiga saldhiga biliis damis macnuhu waxa weeye markaa waa dhaqan xumay ka ilaalin dhaqan xumo laakiin dhaqan xumada ayaynu eegi doonaa iyo timaha min nooca la xidhay marka ugu horeysa xukuumaddu dee maaha